بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada shabakada saxiix oo ugu barteen cilmiga teknolojiyada waxaanu casharkan kaga hadlaynaa hadii la idmo sida loo yareeyo size-ka video-ga adigoo uusan ka lumin wax quality video-ga tusaale video-gan aynu daari doonaa waa aragtaan wuxuu soo baxay si clearly oo cad waxaan fiirin doonaa properties-kiisa anagoo size-kiisa fiirinayna right click kadibna properties waxaanu aragnaa 7.59 megabyte in uu ka kooban yahay size-ka uu leeyahay video-gani waxaan rabnaa in aynu ka yareyno inuu aynu lumin quality video waxaan soo kicin doonaa setup-kan ay ku qoran tahay handbrake ee calaamadda yar canaaska ah ee loogadiisu ay tahay inuu soo gelin doonaa video-ga hoostiisa kadibna waxaan ku dhufanayaa source waxaan ka dooranayaa file waxaan dooranayaa file-ka aan rabo inaan soo geliyo video-gan aan dooranayaa kadibna waxaan ku dhufanayaa open waxaan halkan ka dooranayaa meeshan ay ku qoran tahay video kadibna waxaan yareynayaa tiradan consultancy quality 20 ah ayaan ka soo yareynayaa waxaan ka dhigayaa 35 kadibna waxaan dooranayaa destination ama meesha aan dhigi doono file-kaygan iyo magacaan u bixin doono waxa weeye tusaale kadibna waan sii kareynayaa waxaan ku dhufanayaa kadibna start si ay inoogu dhamaato hawsheeni waxaan sugayaa daqiiqad yar inagoo aragna inta uu marayo hadda fadlan haddii aad fahmi weydid casharkan amaba uu mugdi kaa galo waxaad commentiga hoose noogu reebi kartaa video-ga hoostiisa wixii su'aal aad qabtid anagoo si degdeg ah kugu soo jawaaben haddii la idmo marka video-gan wuxuu kaa anfacayaa in marka aad size aad u weyn ee video aad haysatid uu si dhaqso ah aad ula soo degi kartid software-kan handbrake kadibna aad u yareyn kartid size-ka video-ga isagoosan kaa lumin quality-ga uu leeyahay video-gaasi waa dhameeyay hadda finish waa save gareeyay waxaan tagi doonaa tusaale properties-kiisa kadibna properties waxaan arnaa inuu yahay 4.6 kii horena imsuu ahaa waynu arnaa kan waa 7.59 kana waa 4.6 waana one video oo isku mid ah haddii aan daarno